dhinaca kale dhowr iyo 20 qof ayaa ku geeriyooday qaraxyo 3 gaarayay iyo rasaas laysla weedaarsaday kadib markii ay dhowr jaho magaalada muqdisho maleeshiyada al-shabaab ay kasoo weerareen. 5 ka mid a raggii al-shabaab ee weerarada soo qaaday ayaa iyaguna ku geeriyooday goobta weerarkaasi, iyadoo sidoo kalena dadka dhintay ay ku jireen dad rayid ah. cabdicasiis xildhibaan oo ah hafayeenka dowladda federaalk ee xagga amniga ayaa saare cabdi axmed arrintaasi uga waramay. tirada guud ee qaraxyada ka dhacay magaalada muqdisho fiidnimadii caawa waxay ahaayeen 3 qarax oo ay maleeshiyada duulaanka ku ah qarannimada iyo madax banaanida dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya, kuwaas oo ujeedada ka dambeysa ay tahay in ay dhiig ka daadiyaan shacbiga Soomaaliyeed. ciidamadeenu waxay ku guuleysteen 5 ka tirsan maleeshiyadaasi inay dhegta dhiigga u daraan. dagaal muddo yar qaatay oo ku dhex maray muxuu ahaa goobtii ay duulaanka kusoo qaadeen oo ahayd inta u dhaxaysa labada hotel ee loo yaqaano sayidka iyo siyaad oo ku yaala magaalada muqdisho, halka weerar kale oo isna isniidaamin ahaa uu hotel dhawaan laga furay magaalada muqdisho oo ku yaala kilometer 0 magaalada muqdisho ka dhacay. ciidamadeenu markiiba muxuu ahaa qaraxyada inta aysan dhicin ka hor markii ay ka war heleen in ay ujeedo kale leeyihiin, waxay rasaas ayay ooda kaga qaadeen, waxayna ku guuleysteen in inta badan ay ka hortagaan waxyeeladii ka soo gaari lahayd shacbiga Soomaaliyeed. dhinaca kale ciidamadeenu waxay ku guuleysteen iyo dhammaan laamaha amniga marka lagu daro kuwa gargaarka in dadkii Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay ay markiiba helaan gurmad caafimaad. tirada rasmiga ah waa garta bal waxaad iga warantaa marka deegaanka hadda inta aad ii sheegtay fiyaad sayidka ilaa kilometer 0 dhinacaas kale markii la fiiriyo waa dhul sidaasi aan uga fogeyn madaxtooyada. marka targetkooda amaba ujeedada ay la damacsanayeen qaraxyadaasi oo laga celiyay ma waxay ahayd madaxtooyada? waxaad garanaysaan in shalay hadalkii xubnaha golaha wasiirada ay kasoo saareen magaalada muqdisho ee ku aadanayd inay ka digaan qatar mar haddii Soomaaliya ay dagaal kula jirto burcadda iyo qowleysatada xalaaleystay dhiigga shacbiga Soomaaliyeed ay dagaal dowladda Soomaaliya kula jirto iyo ciidamada gurmadka ee Soomaaliya ku sugan. waxyeelada ugu badan inta badan waxay soo gaartaa dadka rayidka ama shacbiga ah ee aan dowladda ka tirsanayn. sidaas darteed waxay laamaha amniga si hordhac ahaan uga hadleen qatar in ay jiri karto ku wajahan muxuu ahaa goobaha dadka rayidka ah isugu yimaadaan ee magaalada muqdisho. haddaba dhowr jeer ayaan ku celcelinay annagoo ku hadlayna afka wasaaradda iyo laamaha amniga guud ahaan ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya, waxyeelada ugu darani mar haddii ay shacbiga Soomaaliyeed tahay mid soo gaaraysa in ay shacbigu la shaqeeyaan dhammaan noocyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si loo xaqiijiyo inay nabad galaan naftooda iyo maalkooda. waxaan mar kale laanta afka Soomaaliga ee Voice of America uga mahad celinaynaa fursadda ay noo siisay in codkeena ay gaarsiiyaan guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo ay ku dhaqan yihiin. waxaan ku celinaynaa baaqeennii ahaa si loo ilaaliyo nafta iyo maalka muwaadiniinta ku dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaan ka codsanaynaa in ay laamaha amniga la soo xiriiraan haddii ay tuhmaan. waxaa lagama maarmaan ah in ay gartaan haddii hooyadu haweeneydu ay ka shakiso ninkeeda, haddii gabadhu ay ka shakiso walaalkeed, in ay laamaha amniga la soo xiriiraan. Soomaaliya suurtagal uma noqonayso inta dambiilayaasha xalaaleystay dhiigga shacbiga Soomaaliyeed weli ay ku dhuumanayaan guryo ku yaala magaalada muqdisho. laakiin 12 qof haddii ay dhinteen sida wararka nagu soo gaarayaan 12 qof ayaa dhimatay. marka 12 qof ay dhinteen weeraradaasi waa la fashiliyey sidee lagu dhihi karaa? ileen dad badan ayaa dhintay oo qaarkood rayid ay yihiin, qaarkood ay ku jiraan ciidamada ilaalada ee madaxtooyada. marka weerarada noocaasi kuwa la fashiliyey see lagu tilmaami karaa? waxaan aada uga xumahay in laamaha warbaahinta qaarkood ee Soomaaliya ka howlgalaa ay sheegaan warka ay doonaan. waxaad garanaysaan in muddo 7 gudahooda magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 100 iyo dhowr ruux oo in ka badan dhowr iyo 20 ay ahaayeen ajaanib aan u dhalanin dalkaas weerar maleeshiyada Talibaanku ay ku soo qaadeen. waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed tirada askarta dowladda ka tirsan ee waxyeelada caawa ay ka soo gaartay weeraradii bahalnimada iyo fulaynimada ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho in ay yihiin 2 askari, halka askari kalena uu ku dhaawacmay. dadka rayidka ahna ma hayno dadka rayidka. waxaad garanaysaan dalka aad iga wareysanaysa ee ah Mareykanka toddobaadkan gudihiisa waxaa ka dhacay weerar mid ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee ku yaala dalkaas oo arday ka mid ahaa ardaydii dugsiyada waxbarashada
inuu ku laayay 17 arday ah. dadka Maraykanka ana maanta ay su'aal iska weydiinayaan si aydan mar kale u dhicin. anigu waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliyeed waxaa taariikhda loo qoraa haddii ay xumo ahaydna in laga digo, haddii ay wanaag ahaydna in la baahiyo. haddaan su-aal kaa weydiiyo 3 weerar oo kala gedisan oo siyaabo kala gedisan loo soo kala abaabulo ayay ahaayeen qaraxyada ee xalay dhacay. marka waxaad bal iiga warantaa qarax noocaasi marka lasoo abaabulayo oo haddana xabado dagaal toos ayaa ka dhacay meesha sida wararku nagu soo gaarayeen, sidee ayaa laamaha amniga ee dowladda horey ay uga sii warheli waayeen? inkastood horey u sheegtay in baabuur walxaa qarxa laga soo buuxiyey ay jireen, haddana warrada noocan oo kale ah intaan lasoo qaadin xataa maxaa loo fashilin waayo? waxaan rajaynayaa in shacbiga Soomaaliyeed ugu yaraan ay fahamsan yihiin mar haddii dambiilayaasha iyo dhagarqabayaasha duulaanka kuwa sharafta iyo karaamada shacbiga Soomaaliyeed guryahooda ay weli ku qarinayaan, waxaa lagama maarmaana inay gartaan waxa la badbaadinaya inay yihiin mustaqbalka iyo aayaha ubadka Soomaaliyeed. annaga oo ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, waajibka na saaran wuxuu yahay inaan shacbiga uga digno wax kasta oo abuuri kara inay naftooda waxyeelo ama uga iman karto waxyeelo naftooda soo gaar. haddaba mar haddii laamaha amnigu ay ka warheleen inay jiraan khatar kusoo wajahan shacbiga Soomaaliyeed, rabitaankeena waxa uu yahay si loo xaqiijiyo amnigooda in ay xiriir nala soo sameeyaan. laba ka mid ah gaadiid midna ma uusan gaarin labada gaadiid ee is-eryaneysay markii ay ciidamadu ka shakiyeen ay rasaasta ku fureen